isdiiwaangeli muwaadin isdiiwaangeli muwaadin farxad weyn bay noo tahay inaanu saakaydi soo booqanno iyadoo tababarkan saddexda casho ah inoo furmay kanoo qayb ka ah muxuu ahaa shaqaalaha loo qaadanayo diiwaangelinta oo saaka ka furmay jaamacadaha ugu waaweyn ee dalka oo 450 muxuu ahaa qof in ka badan ay maanta tababarkan u fadhiyaan marka farxad weyn bay noo tahay inaanu Hargeysa muxuu ahaa jaamacadda Hargeysa aanu idinku nimaadno waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaamacadaha dhammaantood sida hagarleyda ay noola shaqeeyaan mar wal waan u baahano muxuu ahaa inaanu wada shaqeyno qaranka aanu wada adeegno ama diiwaangelin ha noqoto ama hawlaha kale ee commissionku ay doorashooyinka ha noqoto qayb baan idin rajaynaynaa shaqo muhiim ah qaranka u haysan waayo xogta iyo data-ka aad idinku soo gudbinaysaan ayaa hadhow qaranku ku xisaabtamaya marka hawl badan iyo tacab badan baa la geliyay si diiwaangelin qurux badan ay qaranka uga dhacdo idinkuna qayb baad ka tihiin marka qof walba inuu waqti ilaaliyo inuu sirta ilaaliyo inuu shaqada ilaaliyo goob kastuu tagayo diiwaangelintana way ka badan tahay diiwaangelinihii hore waxa jira goobaha qaar 30 casho marka lagu yiraahdo 7 ilaa 6 shaqee hawl yar maaha taquraanu aanu go'aanka u qaadanay supervisoradu inay noqdaan dad imtixaan galay oo jaamacad ka baxay waxa weeye shaqada iyo adkeysiga looga baahan yahay shaqadan oo tii hore ka duwaneyd diiwaangelintii hore waxay ahayd 7 casho haday ugu badato 7 casho de qof waliba ka bixi kara laakiin marka ay tahay 15 casho oo goobaha qaar ay yihiin meel remote ama ay yihiin 30 casho isku bixisa oo jimco lahayn oo khamiis lahayn oo wax kale lahayn waxa la idinka baahan yahay dadaal dheeraad ah iyo adkeysi dheeraad ah marka maanta fursadaas aad haysataan leeyahay hebel ama hebel goob hebel la geeyay natiijadii iyo shaqadooduna aad bay u fiicnay hadda waxa weey qofkaasi wuxuu mutaysan doonaa ama diiwaangelin kale ha noqoto ama doorasho kasta ha noqoto inaanu record hayno oo recordku la soo saaray leeyahay hebel oo goob hebel la geeyay supervisorkii ugu wanaagsanaa buu inamadan TOT-yada iyaga maalintii dhaweeyay aanu kala direynay kulli moojina media ka aragteen TOT-yadii hore loo qaatay umaanu weydiinay teamkaanu TOT-yada kuweeba ugu sareeyay ugu fiicnaa liiskii bay markaana siiyeen liiskii sidoodii baan ku qaadan marka inanka TOT-ga halka wuxuu ku joogaa dadaalkii iyo aqoontii iyo kartidii uu galay diiwaangelimihii hore iyo recordkii uu hayay uu yaalay commissionka idinkana marka record cusub baa commissionka idin yaala laga bilaabo maanta ardaygaasi ama shaqaalahaasi tababarkii uu iman jiray uu ka soo qayb gali jiray on time buu iman jiray kani Facebook buu ku jiray muu dhageysan jirin report bay ka bixinayaan qof wal oo report noocaas laga bixiyana mar dambe inaan commission ku soo noqonayn